madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga waa uu ku mahadsan yahay garabtaaka mar walba garab taagay walaalaha Soomaalida aad baan ugu mahad celinaa dhammaan shacabka Turkiga iyo walaalaha Turkiga waa walaal jira waana run ahaantii walaalka Roma ay ku naaloonayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed mar walba dhinac taagan hadii dib dhaco iyo waqti kastaba waqti dhinac taagan aad baan ugu mahad celinaa anoo ku hadlaya afka shacabka Soomaaliyeed afka madaxweynaha jamhuuriyadda afka safiirka safaaradda iyo dhammaan safaaradda oo dhan walaalaha dhibku gaadhayna aad baan uga xunahay oo tacsideynaa ehelada khaaska labada injineer ee ku dhintay naftooda u huray dhismaha dalka Soomaaliya u tagay naftooda ku waayay iyagana familada ka dhinteen waan u tacsideynaa si gaar ah ayaan ugu tacsideynaa tacsi guud oo ka socota ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed anoo ku hadlaya afka Soomaalida oo tacsideynaa waxaan rajaynaynaa inay Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibkiina gaadhay uu noo booyodhayo waana runtii masiibo qaran oo maanta taabatay guri kasta oo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhu ilaa xalay ilaa saaka oo diyaaradda soo ambaxasay ma aysan istaanbay hayeen taasana muujinaysa inay masiibadu ballaaran tahay أنا أحد قدوميها ركض جناحسيجا يو قدومي كحجينك عبد الفتاح وأنا هلك أوتاجنا إن ما أنت أسوق رمنا ومدة مرك أجوه الرئيس بوحن كل دقائقنا إن نوكلنا إن جاكده هذا حنت اللي جشتو تاسو نقول كلفت إنه جوي جمانت وخبوا بني هاي وأنا تاجنا درجة 0 أما 0 مرك تعالى لقيت أيام حقوق لقلنا دعوة على السعودية يقفك وضبا إن أنو كساعدنا أن جاكوينك كدبنا أنو جوجل من إسبيتال كبرت لكن مركو جوري دقائق عن سميني متكابوها والله حالة درينكيga ما أهمت أن قياسي كرو هذنا الحمد لله وحياه قدر وإنا قسميرنا بكاننا لحي 10 قفود waaye waxaan u diyaarinay 16 qof oo turjumaan ah oo bukaanka xaaladiisa ka soo warbixiya si aan ula socono bukaanka xaaladiisa insha Allah waxaan diyaar u nahay dadkaas xaaladooda caafimaadkooda dhaqdhaqaaqooda waxay u baahan yihiin inaan kafaalo qaadno haddaan nahay ardada Soomaaliyeed wax ka barata magaalada Ankara waajibaadkii ardaynimo waajibaadkii Soomaalinimo waajibaadkii dameernimo intaasba inaan ka soo baxna anaga diyaar u nahay إلهي وحن كبرينا أنت دي مثلا الله نحرسته أنت داوحسنا إلهي داوعد الله بكسيو دتك ولا لها الصومالية كمشقوشن تاكل أنت إيه وحقبتك داوعد كجرا إسبتال هذا مجال هذا مقدشو أو إسبتال هذا قرنك يا إسبتال هذا برايفت كبا كجرا يا أمد الصومالية هذا مرحلة هذا كجرتا دتك الصومالية قعمت وين كجيسنا إلهي وحن لنا هيدين أول مريو دولة تركيا aanu joogno maanta caasimadeeda Ankara waxa halkan noogu keenta dhaawacyo aad iyo aad u fara badan oo dheer 16 gaaraya iyo dad la socdo oo iyaguna caawinaya waxay gacan furan ku soo dhaweeyeen shacabka iyo dawladda Turkiga waxaanu taaganahay airportkii dhaawacyadu ka soo degeen halkan waxa isugu yimid madax fara badan iyo mas'uuliyiin dalka Turkiga ah iyo dhammaan isbitaalada u waaweyn dalkan Turkiga waxa Ilaahay uga baryaan dadkan Ilaahay caafiyo وحيل يهوى يدونه إلهي إذا كيسة يجا كتعالي دونه إلهي وحبكسية إلهي وحافية إلهي أيا دبتة قاعدة لكن ضد شعبه تركيا يدولد الشعب التركي بوحي آد والدعين يان ويمد الصومالية إلهي وقبريان دبتة كل رأكتي صدون جرستين إلهي وكقاعده إلهي سبحانه وتعالى وحن وقبريان نوعا لسوق جرسيي دلك تركيا لكان إنه نوع في ماذا إن شاء الله sidoo kale waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan qoysaskii eheliyadii iyo saaxiibadii dadkii shalay ku dhintay qaraxaas dhammaan waxaan u mahad celinayaa tiimamkii caawa halkan joogay caawita waxaan aad iyo aad yani qiirooyinka dhaawacu aad buu qaybtood u liiteen wax laga sheekayn karo maaha waxaan indhaha ku aragnay arrintii igu xanuunka badneed waxay aan la kulmay intaan taagnaa goobtan hooyo soo degtay oo markaan saa soo dejinay jaakadaha aan u qaybinaynay soo dhaw ku niraahnay wada gabadheeda oo dhaawaca tiraahday 3 gabdhood ayaan dhalay 2 gabdhood oo kamida gabar way iga dhimatay qaraxi shalay gabadhaana waana ku samirsanahay qadarka iyo wixii Ilaahay ii keenay hooyada tiriba aad iigu xanuun badnayd ilmo yar oo 2 jir ayaa ku jira dadka nala soo gaarsiiyay caawito ma laga sheekayn karo Ilaahay waxaan ka baryaa musiibadan inuu Ilaahay naga dulqaado